السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan wacyigelin yar la wadaago xanuun dad badan oo gaar ahaan dadka waaweyn dhawaanahan ay ugu imaanayeen. xanuunkaas waa lafaha oo jilca ama luqadda caafimaadka loo yaqaano osteoporosis. lafaha oo jilca dhibaatada ay leedahay waxay tahay qofkii laftiisa haddii ay jilicdo wuxuu u nuglaanaa inay laftii si fudud ku jabto. marka waxaa arkaysaa hooyo ama qof weyn oo ku imaanayo oo dhahayo waxaan ka jabay gacanta qaybta hoose, ama waxaan ka jabay sinta hadda ka hor, ama waxaan ka jabay anqawga. haddana mar labaad kugu imaaday asigoo meel kale ka jabay. dhakhaatiirtii ama bahdii caafimaadkana baraarug weyn ma jiro oo ah qofkan muxuu markasta u jabooyaa. waa sax, jabki waa la daaweynayaa, talooyin kale waa la siinayaa, laakiin maxaa sababayo oo soo celcelinayo qofkan inuu jabo ama u nuglaado inuu si fudud ku jabo? sababta waxay tahay lafiha ayaa jilcan. caadiyan qofka marka uu yar yahay ama ilmaha lafooda waa carjo markay soo weynaadaana lafaha way sii adkaadaan. qofka marka uu da ahaan soo weynaado oo 60 sano 65 sano uu la soo ekaadana laftii haddana way jilcdaa. marka laba qolo ayaa u nugul lafaha inay jilcaan kadibna si fudud ay ku jabaan. waa dumarka dhiigga caadada ka go-ay iyo dadka da-dooda ay ka weyn tahay 60 sano. 60 sano marka la dhahay annaga dadkeena badanaa dadka aan arkayno waa dad 50 55 iyo 60 ka yar welina xanuunadii qaba. marka qasamaha da-daada inay 60 ka weynaato waxay noqon kartaa adigoo 50 jira, adigoo 55 jira ay lafahaaga jilci karaan kadibna si fudud ku jabi kartaa. laakiin halista ugu badan waxay jirtaa qofka kullama uu sii weynaado kullama lafihiisa inay u nuglaadaan inay si fudud intay jilcaan ay ku jabaan. maxaa loogu walwalaa xanuunkan oo la rabaa in looga hortago? sababtu waxay tahay qofkii haddii lafihiisa ay jilcaan wuu dhici karaa, wuu kufi karaa, kadibna si fudud ayuu ku jabi karaa. qofka haddii uu jabana noloshiisii ayay saameynaysaa. tusaale, dadka markay sinta ka jabaan haddii aan qalliin loo sameyn ama xitaa haddii qalliin loo sameeyo qofkii muddo ayuu sariir saarnaanayaa, sidii hore uma socon karo. wuxuu u nuglaanaa in xinjirow dhiigga xanuuno lamid ay ku dhacaan. wuxuu u nuglaanaa socodkii sidii hore inuusan noqonin. wuxuu u nuglaanaa in kala goyskaas ay dhibaatooyin kaleeto ku dhacaan. hadhowdiina qofka noloshiisii iyo nolol maalmeedkiisii ayay markasta saameynayaan. sidaa daraaddeed xanuunkan waa xanuun u baahan in laga hortago. ma jiraan wax calaamadaha xanuunkan lagu aqoonsan karo. caadiyan qofka ilaa uu ka jabayo wax calaamada oo qofka laga arki kara ma jiraan, laakiin waxaa jiro waxyaabo kuu sheegaya qofkan ma ku jiraa da-dii ama waxyaabihii u nugleysiinayay lafihiisa inay jilcaan kadibna si fudud uu ku jabo. waxaa ka mid a koow, qofkan da-diisa, ama dumar ma tahay, dhiiggii caadada ma ka go-ay, meeqa sanay moog tahay. waxyaabahaas oo dhan qofka haddii uu kuu sheego waxaa la rabaa in dhakhtarka ama bahda caafimaadka ay baraarug u sameeyaan qofkan wuxuu u nugul yahay lafihiisii inay jilcaan. labo, qofkan haddii uu qabo xanuuno metabolic disorderada, tusaale ahaan qanjiradan dhunta ku yaal oo kaleeto cillad ka qabaa, keliyo cillad ka qabaa, vitamin D iyo calciumkii jirkiisa caadi maaha. cilladahaas qaba waa dadkii xanuunkan u nuglaa. marka calaamad gooniya oo qofkan la dhahayo osteoporosis ama lafihiisa waa jilcayiin oo lagu arkaayo ma jiraan. laakiin qof da-daasa haddii uu si fudud tusaale ahaan wuu sanbariiraxday, wuu dhacay, sintuu ka jabay, gacantuu ka jabay, anqawuu ka jabay, qofkii da-daas ku jiray marka waxaa la rabaa in laga fikiro inuu u nugul yahay ama ay jabkan ay horseedeen wixii loo yaqaano lafiyo jilceen ama osteoporosis. maxaa looga hortegi karaa? waxyaabo badanaa looga hortegi karaa. waxyaabahaas waxaa ka mid a dhicitaanka kadib ayuu jabka imaanaa. sidaa daraaddeed dhicitaanka in laga hortago. dhicitaanka waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a dadka qaar waxay qaataan daawooyin badan. daawooyinkaas waxaa ka mid a daawooyin warwareer iyo hurdo keenayo. daawooyinkii xoogaa in la kontaroolo, qofkii loo sheego kuwee ku habboon habeen, kuwee ku habboon maalin, subaxii aroortii sariirta markuu kasoo degayo, gurigihii in lagu dadaalo, meelaha mutuleelka ama sabiibaha zaa'idka meelaha kala korkoreeyo oo qofka uu ku kufi karo in laga taxadaro, araggii qofka, balansigii qofka, waxyaabahaas oo dhan in la soco. laftii maxaa adkeyn kara? waxyaabahaas marka waa ka hortagii dhicitaanka wixii la xiriiray. lafta waxyaabaha adkeyn kara waxaa ka mid a labada shay ugu muhiimsan waxaa waaye vitamin D iyo calcium. vitamin D-ga qoraxdaan ka helnaa, kadibna jirkeenna ayaa nuuc
active form la dhaho usii bedelayo. xilliyada ugu fiican ee laga helana waa aroorta horeeto 8 ilaa iyo 10 subaxnimo intuu dhaxayso ama galbihii. waxyaabaha kaleeto lafta adkeynaya waxaa ka mid ah calciumka cuntooyinka laga helo waxaa ka mid ah caanaha, khudaarta cagaaran oo kaleeto. haddii marka qofka uu da'daas soo gaaro waxaa fiican in daawooyin oo calcium iyo vitamin D ay ku jiraan uu qaato. haddii da'dii uusan gaarinna ama uu dhow yahana waxaa fiican in cuntooyinkaas calciumka ay ku badan tahay qoraxdii uu helo. baaritaan ahaan waxaa jiro waati aanan qofka calaamado ma lahan xanuunkan osteoporosis laakiin waxaa jiro baaritaan la dhaho DEXA scan oo la fiirinayo lafta xajmigeedii intuu u leeyahay. nasiib darro Soomaaliya ma yaalo, laakiin waxyaabaha kaleeto ee lagu ogaan karo laftan awoodii ma jilcan tahay mise waa adag tahay raadida caadiga waa lagu arki karaa. waxyaabaha kaleeto lagu arki karo waxaa ka mid ah dhiigagii calciumka vitamin D ilaa intee ay leeyihiin. waxyaabahaas oo la isku geeyay ayuu dhakhtarka ku go'aansanaa qofkan xanuunkii ma nugul yahay mise ma qabaa mise laftiisa ilaa intee ay adag tahay. daawo ma leeyahay? haa, daawooyin wuu leeyahay. markasta waxaa muhiim ah in laga hortago wixii laga hortegi karo. sidaa daraadeed waxaa muhiim ah hooyada oo dhiiga caadada uu ka go'ay, qofka weyn oo da'da ah, in baaritaanadaas loo sameeyo wixii la helayo, kadibna daawooyinka ka hortagga ah ee vitamin D iyo calciumka la siiyo. qofka laakiin soo jabay oo already xanuunkiisii uu daran yahay uu gaaray heer uu jabo, ama qofkii toosnaa jira laakiin hadda dhabarkiisii tuur soo yeeshay sida dadka waayeelka badanaa lagu arko, calaamaadka xanuunkana caanka uu ku yahay ay ka mid tahay, waxaa fiican daawooyin vitamin D iyo calciumka iyo kuwa caadiga ka tan weyn oo lagu talagalay xanuunadaas in la siiyo. marka waxaa fiican qof kasta oo tilmaamaha aan sheegay leh inuu la xiriiro dhakhtar lafo ama dhakhaatiirta internal medicine gaar ahaan kuwa endocrinology loo yaqaano xanuunada uurku jirta iyo qanjirada iyo kuwa ku takhasusay si loo baaro loogana hortago xanuunkan. haddii ay qabaan daawooyin sax loo bilaabo. ogaada qofka jabka uu ku soo noqonayo ee hadda kahor laga yaabay inuu inta ka jabay, garabka agtiisa ka jabay, ama anqawga ka jabay, ama sinta ka jabay, wuxuu u nugul yahay 10 sano gudaheed inuu meel kale ka jabo. si uusan ugu jabin ka hortag ayay leedahay. waxyaabihii aan sheegay ka hortagaas haddii la sameeyana halistii ayay yaraynaysaa, dhibaatadii bukaanka ku imaan lahayd ayay yaraynaysaa, jaaniskii dhimashada iyo dhibaatooyinkii la xiriira ayay yaraynaysaa. sidaa daraadeed ka hortagga aan ku dadaalno. asalaamu calaykum.